بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan. halkani waa warar TV ku soo dhawaada. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxa kamid ah Djibouti oo markii ugu horeysay ogaatay khiyaanada dhabta ah ee ay maleegaysa Kenya. afgambigii fashilmay oo la ogaaday inay lug weyn ku lahayd xilli madaxweyne Geelo uu ku dhawaaqay go'aano lama filaan oo la xiriirka kala dhaxeeya Kenya. wararkii ugu dambeeyay kursiga uu rabo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo halis weyn ku jira magaalada Jowhar oo qarka u saaran dagaal dhiig uu ku daato. haddaba yay tahay cidda isku haysata maxaa keenay halistan? dowladda federaalka Soomaaliya oo markii ugu horeysay si cad u sheegtay inay joojinayso mashruuc aysan dan ugu jirin Soomaaliya oo wali ka socda xeebaha dalka. maxay tahay sababta loo joojinayo? muxuu yahay mashruuca la doonayo in lagu bedelo arrintan? qaramada midoobay waxay markii ugu horeysay kala kulantay diidmo Soomaaliya la xiriira arrimo ku saabsan danaheeda. qodobada saaxiibayaal iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena ee soo dhawaada. fadlan haddii aad tahay mid nagu cusub ku soo biir channelka oo ka mid noqo dadka ku xidhan. aan ku bilaabay saaxiibayaal sida hordhaca warkeena aad ku daawanayseen madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa mar qura gaaray go'aan lama filaan ah kadib markii ay soo bateen shakiga laga qabo in dowladda Kenya ay lug weyn ku lahayd afgambigii fashilmay ee uu ka badbaaday maamulka uu hogaaminayo Ismaaciil Cumar Geele. ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ka agdhow madaxtooyada dalka Djibouti ayaa waxa ay warar TV u cadeeyeen jiritaanka qorshayaal siyaasadeed oo durba uu bedelay madaxweyne Geele kuwaas oo markii hore uu doonayay inuu kula saaxiibo dowladda dalka Kenya. sirdoona ka tirsan kuwa dowladda Djibouti ayaa ogaaday xogo la xidhiidha in qaar ka mid ah saraakiisha imika ku jira xabsiga ah ee waday hawsha shirqoolku inay yihiin qaarkood kuwa ka yimid dalka Kenya, qaar kalena safar ahaan ay ku soo mareen. sidoo kalena waxaa la ogaaday in xubnaha qaarkood xidhiidho dhow ay la leeyihiin mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda dalka Kenya. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo dhawaan uu bilaabay xiriirka kala dhaxeeya isaga iyo Kenya ayaa waxa uu durba sheegay inuu si lama filaan ah ku joojinayo xiriirkan maadaama uu soo galay shaki siyaasadeed dhexdooda. waxa uu tilmaamay madaxweyne Geele in dowladda Djibouti marnaba aysan aqbalahaynin inay haysato cadow dhabarka ka jabinaya, wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in hadda wixii ka dambeeya aysan jiri doonin wax kalsooni ah oo lagu qabo sida uu sheegay. dhawaan ayuu xiriir afqaalme ka dhex bilaabmay dowladaha Kenya iyo Djibouti kaasoo ujeedka ugu weyn uu ahaa in Soomaaliya lagu dareensiiyo xanuunka la xiriira isbahaysiga dhinacyadan, balse sida hadda muuqata durba waa lagu kala baxay sababtoo ah waxaa dhinacyada soo kala dhex galay shaki aad u baasan. afgambiga dhicisoobe ee uu ka badbaaday Ismaaciil Cumar Geele haddii uu suuro geli lahaa 22 sano kadib hogaamiye cusub ayay yeelan lahayd Djibouti, waana mid naadir ah sida loo ogyahay maadaama dadka inta ugu badan ay yaqaanaa ay ku sheegaan inuu yahay keligii taliye. Ismaaciil Cumar Geele oo dhirbaaxashadani ay noqotay midii ugu horeysay ee lagaga naxsaday ayay xubno badan oo mas'uuliyiintiisa ahi waxa ay dareemeen inay jiraan dhibaatooyin iyo xaalado taagtaag oo kaga yimid dowladaha aan ka fogeyn. inkastoo markii hore tuunka lagu soo diray dowladda Ethiopia, haddana markii dambe Ismaaciil Cumar Geele iyo sidoo kale kooxdiisa sirdoonku waxa isku raaceen in cilada ugu weyn ee Djibouti soo wajahday ay tahay xiriirka cusub ee kala dhaxeeya Kenya, maadaama markii hore xiriir qoto dheer uu kala dhaxan jiray dowladda dalka Ethiopia. lama oga nooca go'aan ee rasmiga ah ay qaadanayaan xukuumadda Djibouti, balse madaxweyne Geele waxa uu cadeeyay in marnaba uusan aqbalahaynin in la dhabar jabiyo qarannimada wadankiisa iyo sidoo kale astaanta uu u yahay wadanka. waxa uu Ismaaciil Cumar Geele ku dadaalayaa ilaashashada booska uu haysto isagoo ka hortagaya cid kasta oo isku dayda inay ku qabsato kaalinta uu joogo maadaama si weyn loo aaminsan yahay. wararkii ugu dambeeyay laga helayo magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti waxa ay ku waramayaan in xaaladdu imika ay degan tahay, sidoo kalena su'aalo weydiin ay ku socoto saraakiishii soo qaban qaabiyay militariga ahaana ee doonayay inay afgambiga kula wareegaan guud ahaan wadankan yar. si kastaba ha ahaatee kalsooni darada cusub ee labada dhinac soo dhex gashay faa'iido ayay u noqon kartaa Soomaaliya oo Djibouti marka waxa ay doonaysaa in saaxiibtinimadii qotada dheer ee Soomaaliya dib loo soo celiyo, waase haddii ay kulmaan labada hogaamiye oo gaara.
wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa ku waramaya in qarka ay u saaran tahay magaalada inuu ka dhaco dagaal aad u xoogan kadib markii halis la geliyay kursiga uu ku tartamayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo imika ku fadhiyo wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. loolanka loogu jiro laba kamid ah kuraasta golaha shacabka ee yaalla magaalada Jowhar, gaar ahaan midka uu ku fadhiyo wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa la isku haystaa. dhoolatusan caadi ahayn oo military isla markaana ay ka muuqdeen hub iyo gaadiid fara badan ayaa waxaa soo bandhigay maleeshiya u abaabulan habbeeleed oo ah beesha iskale kursiga qaarkood, kuwaasoo sheegay inaysan yeelahaynin hadda wixii ka dambeeyay inay ahaadaan matalaad la-aan. arrintaa darteedna waxa ay keentay inuu yimaado isqabqabsigan cusub ee meesha yaalla. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa meeshan ku qalqalsan xilligan, waxaana dhowr jeer hore uu hortagay odayaasha dhaqanka iyo beelaha kuraastan iskale, kuwaasoo uu ka dalbaday in la siiyo kursi. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku adkeysanaya in marnaba uusan ka tanaasulahaynin kursiga uu imika ku fadhiyo ee Hob 140, balse waxa uu sheegay inuu doonayo inuu galo tartan furan oo haddii laga guuleysto uu cafinayo. isticmaalka siyaasadda iyo kala aragti duwanaanta shakhsiyaadka ku loolamaya waa mid muujinaysa hadba aragtay, waxaana 30 milyan haysta uu doonayaa inuu soo bandhigo cadeymaha la xidhiidha hogaanada iyo sidoo kale sida loogu kala guuleysanayo. dhaqdhaqaaqa ciidan ee ay Jowhar ka bilaabeen ciidamadan kasoo horjeeda in kursigan la siiyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed lana ogaaday inay yihiin kuwa ka amar qaata Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa ay cabsi weyn geliyeen dadka ku nool magaaladaasi, isaga oo durba digniin u soo diray madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo isagu fadhi ka dhigtay magaalada Beledweyne. Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kamid ah shakhsiyaadka u hardamaya hogaaminta sare ee dalka Soomaaliya ayaa markan qaba walwalkii ugu badnaa ee la xidhiidha inuu waayo jagada xildhibaannimo iyo sidoo kale inuu ku guuleysan waayo jagada xilka ugu sareeya wadanka oo ah mid uu imika doonayo. rajadiisa la xidhiidha helidda kursigan waxa ay ku xidhan tahay in tanaasul uu ka yimaado labadan dhinac midkood iyo in doorasho tartan furan ay wada galaan, balse ergada inta ugu badan la siiyay isaga si uu qaato tirada ugu badan ee codadka meesha taala. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa balaarinaya dadaalada siyaasadeed ee uu doonayo inuu ku sameeyo isbedelka cusub, waxaana si weyn la isu weydiinayaa qaabka kaliya ee uu ku suuragelin doono qorshihiisa. inta ugu badan odayaasha beeshiisa ayaa waxa la sheegay inay u ogolaadeen, balse Cabdullaahi Maxamed Nuur oo soo abaabulay maleeshiyaadkan ayaa waxa uu keensaday meesha, lamana oga sida uu xaalku noqon doono. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay yeelatay awood ay ku joojinta mashruuc aysan dan badan ugu jirin Soomaaliya oo ka socday xeebaha dalka. qaramada midoobay ayaa fadhi ay yeelatay waxaa lagaga hadlay arrimo badan oo xidhiidha arrimaha Soomaaliya. danjiraha qaramada midoobay u fadhiya arrimaha Soomaaliya Abuukar Baalle oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu jeediyay khudbad xasaasi ah oo la xidhiidhay in dowladda Soomaaliya soo xidhay mashruuc sanado badan ka socday badda Soomaaliya. arrintan ayaa waxa ay ahayd in 10 sano kadib dowladda Soomaaliya ay joojinayso guud ahaan hawleeda la dagaalanka burcadbadeed ee laga wada xeebaheeda. waxay qaramada midoobay u sheegtay in la joojinayo qaraarka golaha ammaanka ee la dagaalanka burcadbadeed oo tirsigiisu ahaa 2608-2021 oo laga soo bilaabayay 3 Maaj. go'aankani waxa uu yimid iyadoo xeebaha Soomaaliya ay noqdeen nabad isla markaana aysan jirin warbixin sax ah oo cadeynaysa halis dhanka nabadgelyada ah oo ka jirta xeebaha Soomaaliya marka la eego xilligan. arrintan ayaa ahayd mashruuc la buunbuuninayay oo dowladda shisheeye shaqo ay ka dhigteen, ha yeeshee waxay dowladda Soomaaliya ugu dambeyntii u suura gashay in la xidho oo sumcad xumada xambaarsanaa muddada dheerna laga dhaqo dowladda Soomaaliya. danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in guud ahaan la joojiyo mashruuca la dagaalanka burcadbadeeda maadaama aysan xeebaha Soomaaliya ka jirin wax burcadbadeeda. danjira Abuukar ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay soo noqotay imika isla markaana aysan joogin sanado ka hor halkii ay joogtay, waxaana uu tilmaamay inay muhiim tahay dadaalka ay bixinayaan saaxiibada Soomaaliya si loo gaaro hiigsi fog, balse wuxuu cadeeyay in dhaqaalaha cadada badan ee lagu bixinayo la dagaalanka burcadbadeeda iyo waxyaabaha la midka ah uu ka caawin karo arrimo la xidhiidha diristaanka waxyaabaha qaar.
dowladda Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay soo nooleysay rajooyinkii Soomaaliya waxayna dunidu mar kale arkaysaa Soomaaliya u soo ifaysa hab dawladnimo inkastoo xubnahan qaar ee siyaasadda ku maleegan aysan ogoleyn arrintani. si kastaba ha ahaatee go'aankan ay gaadhay dowladda Soomaaliya ayaa noqday mid si weyn loogu bogaadiyay waxaana Danjire Abuukar Baale lagu tilmaamay inuu yahay geesi. guud ahaan warkii waa naga intaa.